Assalaamu calaykum daawadeel ku soo dhawaada warbixin kooban aynu ku eegi doono xayawaanka loo yaqaano bisadaha. Inta aynu u gudbin muuqaalkan waxaa idinka codsanaya inaad channelka subscribe gareysaan, like-na siisaan muuqaalka, share-na gareysaan. Warbixinta ugu la yaabka badanna aad commentiga ku reebtid. Warbixinteena haddaba dhinacyo badan ayaynu ka eegi doonaa sida hurdada bisada, dareenkooda dhadhanka, riyooyinka bisadaha iyo xaqiiqooyin kale oo ku saabsan bisadaha. Qodobkeena koowaad ee aynu kaga hadli doono bisadaha waxa weeye hurdada. Bisaduhu waa xayawaanada ugu hurdada badan iyaga oo maalintii seexani kara 16 saacadood. Bisadu waxay ka mid tahay xayawaanada cuna hilibka, tanna waxay uga dhigan tahay shaqo adag iyada oo tamar badan ku lumisa sida ay u gaarsan lahayd. Sidaa darteed la yaab ma leh inay daasho marka ay shaqada adag qabato una baahato raaxo. Waxaa xusid mudan in bisadaha rabaayada ah ama guri-jooga ahi ay tamar badan ku lumin sidii ay u gaarsan lahaayeen iyaga oo hela cuntooyinkooda oo diyaarsan. Waxaana laga yaabaa in ay seexdaan muddo 16 saacadood ka badan. Qodobka labaad waxaynu ku eegi doonaa luuqadda bisadaha. Bisadu waxay leedahay luuqado u gaar ah oo si u adag iyo codad kala duwan oo ay u isticmaasho si ay iskula xiriirto ama ay kula xiriirto xayawaanada kale ama bini'aadamka laftirkiisa. Haddaba bisadu waxay ka mid tahay xayawaanada jecel inay bini'aadamka la xiriiraan ama ay kula hadasho maaw. Maawdaas oo siyaabo badan loo fasiri karo sida inay doonayso cunto ama ay doonayso inay hesho daryeel. Waxaa xusid mudan in bisad kastaaba maaw khaasa ay leedahay oo iyada u gaara oo aynan la wadaagin bisadaha kale. Qodobka saddexaad ee aanu kaga hadli doono bisadaha waa dareenkooda dhadhanka. Haddaba bisada waxaa ka maqan saxnaanta dhadhanka oo ma kala sooci karto ama ma garani karto waxyaabaha macaan ama waxyaabaha qadhaadh. Taasina waa sababta imika haddii aad bisada siiso keeg ayna wax falcelin ah sameyneyn oo ay cunayso xagay hilibka ku hamuumayso. Qodobka afraad waxaynu ku eegi doonaa riyooyinka bisadaha. Bisadu waa riyooni kartaa waa tayga yaabisay. Sifadan waxay la wadaagtaa bini'aadamka waxayna u riyootaa sida bini'aadamku u riyoodaan. Bisadu waxay riyootaa marka ay gasho hurdo dhaaftay ama hurdo macaan. Tan ayaa lagu fasiri karaa maskaxda bisadaha ayaa soo daaya hirar la mid ah hirarka ay soo daayaan maskaxda bini'aadamku. Waxyaabaha kale ee bisada ku saabsan waxaa ka mid ah bisadu waxay leedahay 30 ilkood oo afaysan. Number 2 waxay leeyihiin indhaha bisaduhu la kabsoo celiya ah oo loo yaqaano typtimid lycidium oo weynayso ah iyada oo ka caawisa inay si fiican wax u arkaan 6 jeer laab marka uu iftiinku yar yahay. Waana xuubab ku jira isha koonaheeda. Dhagta bisadu waxay ka kooban tahay ku dhawaad 30 muruq xagga ay dhagta bini'aadamku ka kooban tahay 12 muruq. Bisadu waxay leedahay carab qodxo leh oo shaayig ah. 5 bisadu ma awoodo inay diiradda saarto oo ay aragto waxyaabo u soo dhawaada 30 sentimitir. Bisadu ma jecla waxyaabo caanaha ama waxyaabaha laga sameeyo caanaha sida bahalka loo yaqaano shubniga. Tan aan rumayso amba ha rumaysan bisada rabaayadahi waxay ka cimri dheer yihiin bisadaha duurjoogta ah ee bannaanka jooga. Daawada haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa soo gaadhay waxaa kaa codsanaya inaad channelka subscribe garaysid, channelkana furatid si aad ula socotid muuqaalka.